waxa la soo maray 24 saac oo xanuun badan marka waxa naga dhintay 11 qof ilaahay ha u naxariisto ayaan leenahay waa dad shuhada sida muuqata xaaladaha ay ku dhinteen waxa kaloo dumay 9 guri hal qofna waa ku dhaawacmay waxa go'ay meeshan oo dhan ya dhulka gashay meelo badanna dhaawac xoog leh soo gaaray meeshan waa u jeedaan shalay siday ahayd iyo maanta waa kala duwan tahay hawl aad u adag laga qabtay walina waa la wadi doonaa wadooyinka naga burburay iyo waxa naga halaabo waa dhisan karnaa laakiin dadkii naga dhintay ma soo ceshan karo sidaas darteed waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkii dhintay inuu jannadii ka waraabiyo una naxariisto annagana gadaashooda ilaahay nama fidneeyo hadda waxa la wada dadaalo badan waa aragtaan roobka inta uu roob caadi ma ahayn wuxuu ahaa roob aad uga duwan roobabkii hore la aqooni jiray waxa la igu yiri taariikhda dadka dib u raaca 9 sano madiin roob noocaas la igu yiri marka alxamdulillah hadda meelay biyo fadhiyaan waa yar yihiin meelo badan waa laga saaray iskool bulisi waa banaan tahay hadda waa laga saaray meelo badan oo ay biyo fadhiisteen waa laga bixin doonaa saadarteed waxaan dadka uga tacsiyadeynaynaa wixii culeysya ay yimid waxay ka yimaadeen awooddu intay la agtahay laakiin dawladda hoose iyo gobolka Banaadir maamulkooda waxay ballan qaadayaan wixii tabar in aanan loo kala haraynin oo aynu arrintan sida ugu dhaqsaha badan wadooyinkana loo furi doono saadarteed waxaan ilaahay ka baryaynaa haddii roob kala yimaado inta aanan wax naga xumaanin bal in aan degdegno oo wixii aan dadeji karno aan dadejino ilaahay khayrkiisa nimcadiisa isaga yaqaan goortuu noo keenayo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Muqdisho degan ee culayska ku qaba hanoo dul qaataano waxaan ku dadaalaynaa maalmo yar in wax waliba caadi ku soo noqdaan